wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa maantay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Badri Abdulqaadir oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. wasiir Axmed Macalin Fiqi oo shir jaareed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay muhiimadda ay tilaabadan u leedahay xoojinta xiriirka labada dal iyo isagoona xusay in ay bilaabista duulimaadyada tooska ah ay qayb ka qaadanayso xoojinta iskaashiga dhaqaalaha iyo sidoo kale ganacsiga labada wadan. wasiirka ayaa sidoo kalena soo hadal qaaday doorka horumarinta ee dalka Masar ay ka ciyaarayso taageeridda mowqifka dawladda Soomaaliya isagoona carabka ku dhiftay in ay Masar sii wadi doonto wax kasta oo ay dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ku taageeri karto. Jamhuuriyadda Masar ayaa mar kale ku celisay mowqifkeeda diidmada ku aadan xadgudubka dawladda Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanida iyo badda dhuleed ee dalka Soomaaliya kadib toddobaadkii hore wada hadal xagga qadka telefoonka oo ku dhexmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Xasiisi. duulimaadka tooska ee diyaaradda Egypt Airlines laga fadhiyo magaalada Muqdisho ayaa ka dhigan tilaabo weyn oo loo qaaday dhanka u qaadista iskaashiga dhaqaale ee labada dan taas oo ka tarjumaysa himilooyinka guud ee labada shacab ee walaalaha ah.